ciyaartii dhex martay Liverpool iyo Arsenal runtii waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan. labada kooxood waxaan la soconaa inay labada qayb ay kala qaateen oo kooxda Arsenal qaybta hore inay kubadda inta badan ayaga maamulayay inkastoo fursado aysan helin. sida aan la soconana ciyaaraha gool waxaa lagu dhaliyaa in kubadda la abuuro ayuu ku dhashaa. Arsenalna qaybta hore kubadda aad u fiican ay abuureen oo ay Liverpool ay ku sigeen ma jirto, inkastoo Liverpool ay aad iyo aad ay isku difaacaysay qaybtii hore. laakiin markii la isku soo naqday Liverpool ayaa gacan sarreyso kubadda dhan la wareegtay. waxyaalaha ugu weyn ee Liverpool kubadaha ula wareegtana waxay ahayd waxaan la soconaa in aysan number 9 aysan haysan oo dhexda ay u joogeen ciyaaryahanka Szoboszlai iyo ciyaaryahanka Gravenberch iyo McAllister. horena uu taagnaa number 10 ahaana oo ahay ciyaaryahanka Jarmalka Florian Wirtz inuu meeshaas ka dheelay. saasna waxay ku ahayeen 4 ciyaartoy iyo Gabo iyo dhinac kale oo ka socday ciyaaryahanka Freiburg oo gees ka socdo aad iyo aad u dheeray. taasna cabsi ayay ku abuurtay. Arsenalna waxaan la soconaa 3 ciyaartoy dhexda inay u joogeen oo ciyaaryahankan oo Zubimendi iyo Declan Rice labadaasoo difaaca aad iyo aad u ilaali iyo Odegaard oo numberka 10 kubadda dhiso. taasna waxay keentay Odegaard raacitaankiisa aad iyo aad inuusan ma aha nin kubadaha soo dhici ee waa nin kubadaha dhiso. taasna qaybta dambe waxay abuurtay in Liverpool meeshaas ay ku awood badiso. laakiin Liverpool hal mar goolka oo Arsenal maysan tooganin oo waxay ku baxeen ayagoon goolka oosan tooganin ay caawa ciyaarta ay ku dhamaysteen. taasoo aan la socono Liverpool 16 sano inay ugu dambeysay arrintaasoo kale in ay ku dhacdo. Liverpoolna runtii 14 dhibac ayaa u dhaxayso Liverpool iyo Arsenal. xagga gool dhalintana waxaan la soconaa ilaa 22 gool inay u dhaxayso Liverpool iyo Arsenal oo xagga gool dhalinta iyo dhibcahaba in Liverpool laga fiicaya. laakiin ciyaarta ay la timid runtii ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay Liverpool ay la timid oo Liverpool oo la socono Alexander Isak inuu ka dhaawacaya Ekitike Salah uu ka maqaya. laakiin Liverpool guud ahaan markaan fiiriyo runtii ma xumeyn inkastoo barbar dhac badan ay soo gashay dib u dhacna ku dhacay. waxay u muuqataa ciyaartan ay garoonka Emirates ay soo bandhigtay ciyaar ay soo kabsanayso ayay u muuqataa. waxaan dib ugu imaan doona ciyaaryahanadaas ayaa u soo noqon doona. laakiin Liverpool guud ahaan markaan fiirino khaasatan ciyaartii Bradley oo ku dhaawacmay oo ciyaaryahankan Martinelli oo qalad ku galay ma ahayn ciyaaryahankan markii uu kubadda rabay inuu gamo ayaa waxaan u maleynayaa in jilibka wax ka gaaray oo taas ay keentay dhulka inuu ku dhacay. Martinellina wuxuu u maleynayaa ninkan bamban inuu isriday oo rabo banaanka inuu u jiido. taasna qalad weyn ayuu runtii galay. inkastoo yellow ku qaata haddana waxaa suurtagalaya calaamada gaduuda in lagu siiyo. Bradley aad iyo aad ayuu u xanuunsanahay. marka si kastaba haatee waxaan fili doonaa inuu meeshaas cudurdaar u diri doono oo ka raali geli doono Bradley. ciyaartoyda inta badan ciyaartoyda markay dhacaan waxay ku fikiraan inuu waqtiga uu dhuminayo. daqiiqadaas ugu dambeeyna Arsenal waxaa u maleysaa inay culays xoogaa Liverpool ay soo saartay. Liverpoolna runtii waxaan qabaa ciyaaryahanada hadda ay keentay ciyaaryahanadii ka tegay wax weyn oo u dhaxeeya ma jirin. ciyaaryahanadii horyaalka ay ku qaadeen sida ciyaaryahanka Elliot oo runtii 11 meel la gadaal ka imaan jiray. gadaal markuu ka yimaadana waxba uu sameey jiray ama kubaduu dhigi jiray ama ciyaar fiican uu soo bandhigi jiray. naftigiisa Darwin Núñez waxaan la soconaa in laftigiisa in uu markuu yimaado inkastoo goolal oo qaldi jiray goolal oo cuni jiray haddana inuu ahay ciyaaryahanada gadaal ka yimaada Premier League ninka ugu gool dhalinta badan inuu haystay sanadkii ugu dambeeyay. Diazna waa la soconaa inuu ahay ciyaaryahan aad iyo aad u fiican aad iyo aad runtii u dheeray. Liverpoolna shaxda ay hadda ku dheeshay shaxda ay ku dheeli jirtay waxaa maleysaa in aad iyo aad ay u kala duwan yihiin oo xilligii hore Van Dijk kubadda hadduu qabto kubad dheer ayuu Salah kusoo qaban jiray ama Diaz ku qaban jiray isla markiina weerar ayaa laga gaarsiin jiray ama Alexander Arnold oo saas kubadda dheer ayay dheeli jireen oo weerarka lagu soo qabto. laakiin hadda waxaa u maleysaa Liverpool ciyaartoydii dhan inay bedelantay oo sidii City oo kale ay u dheelaan oo 11 ciyaartoyba ay wada dhaqaaqayaan oo kubadii dheeray ay gami jireen inay meesha ay ka baxeen. taasna inay keentay isbedelkaas Liverpool in ay u baahan tahay inay soo kabsato ay qaabkaasna ay la qabsato. laakiin ciyaartoy fiican ayay keeneen laakiin ma qabo wax weyn inay isbedeleen.
caawana runtii karkiis oo dhinaca bidixda ka dheelaya waxaan qabaa inuu Bukayo Saka si fiican u xakameeyey oo meel iska saaray. Bukayo Sakana waa la bedelay oo Madueke ayaa la keenay oo laftigiisa wax weyn uu ku sameeyey meeshaas maysan jirin oo karkiis aad iyo aad ayuu u fiicnaa. ciyaaryahankan kale xataa Bradley oo dhinaca midigta ka dheelayay laftigiisa Trossard meel iska saaray. Martinelli yimid xataa wax weyn uu ku sameeyey ma jirto oo sideedaba sida aan la socono Martinelli iyo ciyaaryahankan kale oo Madueke waxaan la soconaa mar inuu dhinacaas oo ka soo galo kubad oo soo dhigay laakiin ninkan laftigiisa Martinelli laftigiisa inuu kubad dhinaca bidixda ka keen laakiin labadooda waxaa malaysaa kubadaha ay keenayaan inay tahay kubada aan qorshaysnayn oo la iskaga ridaya inay tahay. taasna labadii kubad cid heshay cid sigtay ma jirin. Odegaard laftigiisa oo kubadaha aad u qaybi jiray qaybtii dambe muusan jooginbo oo kubada inta badan Liverpool ayaaba aad iyo aad u maamuleysay. Gyökeresna waaba la bedelay oo Gyökeres waxa kaliya oo ku badbaadaya waxay tahay Arsenal oo hoggaanka horyaalkiisa oo guulo qaadaysa ayuu ku badbaadaya laakiin nin number 9 maba u ekaba oo waxaa ka fiicnaa Florian Wirtz ayaa ka dhaqdhaqaaq badnaa oo number 9 oo beena jilay. taasna waxay u sahasay Liverpool inay kubadaha inta badan ay haysato qaybtii dambe oo Arsenalna ay gadaal ay u cararto. Marka Arsenal meeshii 8 dhibic horumar leedahay hadda 6 dhibic ayay Villa iyo waxay ka horeysaa iyo Manchester City taasoo City 6 ciyaar dhumisay 3 ciyaar ugu dambeysay ee barbardhac ay gashay. si kastaba haatee Arsenal ciyaarta ugu soo horeyso Bournemouth ay FA Cup ay la ciyaari doontaa. waxaa ugu xigi doona ciyaarta Carling Cup-ka oo Chelsea u tagi doonto gacanta koowaad gacanta labaadna Emirates ayaa loogu imaan doonaa. kadibna waxay u tagi doontaa Nottingham Forest ay gurigooda ugu tagi doontaa. kadibna waxay la ciyaari doontaa kooxda Inter Milan oo Champions League ayaa ciyaari doontaa. waxaa u imaan doona Manchester United ayaa u imaan doona. marka ciyaaro ayaa isku wixii xiga oo aad iyo aad u adag khaasatan waxaan qabaa Carling Cup-ka ay Chelsea oo la dheriso oo Chelsea Champions League kuma jirto. Champions League way ku jiraan laakiin horyaalka wax weyn ay ka rabaan ma jiro. taasna waxaan is dhihi doonaa in Arsenal culays xoog leh Chelsea ay saari doonto sababtoo ah Arsenal waxay ku qasban tahay inay ciyaartooy ay u nasiso oo Forest ay u tagaysaa oo relegation ka dhacay kubadana dheer dheelo xoogna ku dheelo. marka Arsenal ciyaaro adag ayaa ka soo gudbay oo xilligii Christmaska iyo New Year-ka inkastoo maanta ciyaarteedii afraad ay guuleysatay ay ahayd xilligan oo Christmaska iyo New Year-ka laakiin caawa barbardhac ayaa lagu celiyay waana 6 dhibic ayay horeysaa. marka waxaan is leeyahay Liverpool haddii ciyaartooyda u soo noqdaan waxaan is leeyahay Salah iyo ciyaaryahanka kale Ekitike iyo Alexander Isak waxaan qabaa inay soo kabsan doonto difaacooda maanta sidoo ahay haddii ay saas ku dheelaan runtii weer fiicanna way haystaan. marka horyaalka waxaan qabaa inuu hadda xiise leeyahay oo 6 dhibic wax weyn maaha ciyaaro badan ayaana dhiman. marka adiga sidee kuula muuqataa Liverpool ciyaar ahaan ma soo kabsatay mase Arsenal ayay ku xumaynaysay oo ciyaarta qayb dambe ay soo bandhigtay waxay ahayd dadaal ay sameynayeen ay diidanayeen Arsenal inay ka adkaato. sidee adiga kuula muuqataa guud ahaan iyo qaladkii oo galay Martinelli ma kula ahay in calaamada gaduuda loo taaga ciyaaryaha dhaawacma inuu banaanka oo u jiido sidee adiga kuula muuqataa iyo ciyaaryahanadii Liverpool ay keentay iyo kuwii ka tagay tay ahaan ma siman yihiin mase waa kala duwan yihiin sidee waxaasoo dhan kuula muuqataa bal falcelintaada nala wadaag.